Nairobi waxay bilowday galaangal siyaasadeed oo xoog leh tan iyo markii uu xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya Muqdisho. Soomaaliya iyo Kenya waxa dhex taala dood adag. Xiriirka siyaasadeed ee labada wadan ayaa xumaa 20kii shay la soo dhaafay. Durba waxaa muuqata in ay Kenya u dhaqaaqday habkii ay ugu guuleysan lahayd in ay adduunka ka iibiso xaq ahaanshaha doodeeda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma oo fulinaysa amarka madaxweyne Uhuru Muigai Kenyatta ayaa dooda dalkeeda ka iibinaysa adduunka. si dalkeeda u helo garab istaag siyaasadeed ugana adkaada Soomaaliya waxay ambassador Monica qadiyada Kenya ka iibisay oo ay la kulantay Midowga Afrika, Midowga Yurub, qaramada midoobay, Masar, Sweden, Sacuudiga, Norway iyo Israel. Dhammaan kulamadan waxay Monica curisay markii uu soo baxay muranka labada dal, taas oo ku muujinaysa sida ay arrintan uga go'an tahay Kenya iyo falsafadeeda diblomaasiyadda. safarka uu madaxweyne Uhuru Kenyatta ku aaday Addis Ababa asbuucan waa qorshe la doonayo in lagu godoomiyo Soomaaliya. Xaalad culus ayaa ku soo fool leh Soomaalida. Uhuru wuxuu ku guuleystay inuu ra'iisul wasaaraha Itoobiya ku qanciyo inay aadaan Asmara oo ay iswada arkaan saddexda hogaamiye ee Itoobiya, Kenya iyo Eritrea si looga xaajoodo xaaladda gobolka. Saddexda wadan ee Asmara ku shirsan waxay dhulalka haystaan Soomaaliya iyo Djibouti. saddex geesood cusub ayaa ka soo muuqanaya geeska Afrika kaas oo ay ka maqan tahay Soomaaliya. waxaa jira war sheegay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya uusan doonin in Soomaaliya la geliyo go'doon siyaasadeed, laakiin ma muuqato saansaantaas. Soomaaliya weli wax tallaabo ah ma qaadin, ma raadin garab caalami ah, mana jirto wadan ay weli doodeeda ka iibisay, taas oo ku muujinaysa inay hurdo siyaasadeed ku jirto. dadka Soomaalida ah ee xoogagaalka walaac badan ayay ka qabaan siday wax ku socdaan. maxay kula tahay adiga maxaa la gudban Soomaaliya?